sheeko bal hadda aan ka sheekayno sheekadii geesiyaasha dharkeenna aan diyaarsanno dharka noocaan ah waxaa xiran jiray ilmo idinkoo kale ah inkastoo ay carruur ahaayeen waxay hayeen mas'uuliyad weyn oo ah in ay boqortooyadooda iyo xaafaddooda ka ilaaliyaan khatarta uga imaan karta gudaha iyo dibadda waxay ahaayeen geesiyiin weynaaday waxay haysan jireen wakhtiga ugu wanaagsan uguna cajiibsan markay dharkooda xidhaan diyaar ma u tihiin inaad noqotaan mataanaha baddhowr waxa keliya ee laga rabo waa inay waxa saxda ah sameeyaan dhahaanna waxaan rabnaa inuu qof walba ammaan qabo waxaan nahay mataanaha baddhowr mar kastana waxaan diyaar u nahay wakhti wanaagsan ساتهين مقعي واحدة ساتهين مقعي وحرسي waxaan rabnaa inuu qof walba ammaan qabo natiijada waxay noqotay 1-1 waa daqiiqadii 89aad ee finaalka koobka adduunka yaa guulaysan doona ما شاء الله وقولست أبو جول حلت أنكو قولست كوبك أدون كان قطعي هوريالك كالس كالا جيبيك وحكالا كدكت بابو حرسي waxaad samaysay la yaab wax lagu qosla dalka waad seegtay xitaa gudaha maadan gelin labadan waxayba isku magacaabaan geesiyaal sare laakiin maba dhalin karaan wax guulaha ka waran waxaa laga yaabaa inay u baahan yihiin caawinaadeena aynu u soo bandhigno si ay annaga noola ciyaaraan waan ka daalay inaan kula ciyaaro adigoo kaliya wakhtigoo dhan waxaan rabaa inaan la ciyaaro carruuro kale yaa kale aan la ciyaari karnaa hido miyaal alagtaa caduurta halkaas joogo waxaa macquula inaan ka codsan karno inayna la ciyaalaan waxaan leenahay kubad labadiinnu ma u baahan tihiin saaxiibbo idin la ciyaarana ma hubtaa inaad ciyaari karto waxaad tahay naafo dabcan way awoodaan waxaan u hadli karnaa nafteenna annagu ma nihin cuuriyaan waxaana dad waxyar naafo ah bes dabcan waa ciyaari karnaa waxaan u baahannoo keliya in aan waxyar ka beddelno shuruucda waxaan u malaynaynaa in aad ka heli doontaan ma u malaynaysaa inaad naga badin kartaan iyadoo wax dhibaato ah aan jirin dadka qaarkiis waxay ku dhashaan curyaannimo mararka qaar qofku wuxuu noqon karaa curyaan dhalashada kadib waxba kama qaldana qofka naafada ah waxaa laga yaabaa inay caqabaduhu u keento naafanimadu laakiin waxba kama qaldana waxyaabaha qaarkood wayna ku kala duwannahay dhammaanteen waxaannu leenahay qaabab kala duwan
oo aynu ula qabsanno duruufaheenna gaalka ah sida dadka qaar ay u xirtaan mulaayadaha si ay uga caawiyaan in ay si saxan wax u arkaan. dadka qaarkiis haddii socodku uu dhibaayo waxaa laga yaabaa in ay isticmaalaan kursiga dadka naafada ah ay ku socdaan si uu socodkoodu u fududaado. mararka qaar qofka naafada ahi wuxuu isticmaali karaa qalabka caawinta maqalka lagu kaalmeeyo. dadka naafada ah waxay aadaan iskuulada, sidoo kale way guursadaan, way shaqaystaan, qoysas ayay leeyihiin, waxay qabtaan shaqooyin kala duwan sida dhardhaqidda, iibinta dukaanka cuntada, way qoslaan, sidoo kale way ooyaan, wayna xanaaqaan. waa canshuur bixiyayaal iyo cod bixiyayaal, kuwaasoo dhanna waa isla waxyaabaha aynu samayno ama qabanno. mudanayaal iyo marwooyin, waa kooxda jaalaha iyo kooxda xagaaran. dadkiina way furaxsan yihiin, waana isla yihiin. waa dadyo dadka isku haya meeshaan ciyaar aad u wanaagsan. kooxda xagaarka ayaa si fiican u dheelaayeen, wayna dhaliyeen. ido saaxiibaneennu way samayn wax kasta oo ay maskaxdoodu u sheegto, xitaa gool ayay dhalin karaan. dhammaantood waxay geliyeen tabartooda, ruuxooda iyo dadaalkooda. waxaan rabnaa inuu qof walba ammaan qabo. waxaan nahay mataanaha Bedowr. sidaas bayna geesiyaasheenna u badbaadiyeen qof walba. adna ma noqon kartaa ammaan suge.